اوكي بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد markaan waxaan bilaabaynaa haduu ilaahay raali ka dhigo qaybtii oo report-yada aan bilaabi doonaa sahar idinku soo sheegabo reportiska markii laga hadlayo Visual Studio waxay isticmaashaa Crystal Report ay isticmaashaa marka setup-ku kugu jiro mar walba ay ku xiran tahay haduu VB 2008 iyo farsanadii kooriye ay kugu jiraan already built in ay report-kooda ku yahay laakiin hadii uu kugu jiro VB 2008 farsanadii ka dambeeyay waxa qasab ah in Crystal Report oo farshankaas ah in computer-kaaga ku install gareysatid haddaba maadaama aan setup-ka isticmaalo oo yahay VB 2008 already report-kaygu ugu jiraa marka rabo report inaan soo abuurto waxa dhihi doonaa project add new item ayaan dooran doonaa kadibna item-ka u baahan tahay ayaa leedahay waxaan dhihi doonaa report ina u baahanahay ayaan dhihi doonaa haduu ilaahay raali ka dhigo okay report ina u baahanahay ayaan dhihi doonaa waa kana setup-kii Crystal Report-kii hadda Crystal Report 1 ayaa la sameyn doonaa okay waa kana waa lagu soo diray project-keygii laakiin waxa la dhihi doonaa nooca report-ka isticmaalayso waa maxay ma mid wizard ah isticmaali doontaa ma mid oo hore u jira ayaa isticmaali doontaa ma mid blank ah aan hadii jeer waxa dooran doonaa blank oo ah mid firaaqe oo aan sameysanahay ayaa u baahanahay ayaan dhihi doonaa halkan marka aan joogno marka dhalinyaro waxa awood u leenahay report-keena sida u jeegtiin ba shan qayb ayuu ka kooban yahay shan section ayuu ka kooban yahay section kood report header ayaa la dhahaa waa report-ka qaybta ugu sareysa section kale waxa la yiraahdaa page header page walba qaybta ugu sareysa detail section qaybta body-gi waaye report footer-ka waa report qaybta ugu hooseysa page footer-kan waxa waaye qaybta ugu hooseysa marka inta badan labadan qayb oo hoose aad loo isticmaalo saddexdan qayb oo kale aad loo isticmaalaa qaybta sare oo ah report header-ka waxa la dhigaa waxyaabaha oo astaamaha qoliyaha wax loo sameeyay ay leeyihiin loogadooda kale ayaa dhigaa insert ayaa dhigi doonaa loogada hadii jeer picture waaye waxaan dhigi doonaa picture na ugu soo dar kanoo kale iga dhigaa haddaan rabo sawirkan hadda wuu weyn yahay laakiin waxaan sameyn doonaa anigu waa yareyn doonaa haduu ilaahay raali ka dhigo sawirka waa yareysanaysaa cabirka rabta ayaa ka dhigi kartaa kan hadda waa yareyn karnaa okay marka sawirka hadda waa yareyn doonaa cabirka rabnaa ka dhiganaynaa cabirka rabaa ka dhigi karaa kiiska rabaan u yareyn karaa marka kana loogadii kale markii inta la keeno badanaa magaca la soo raacsiiyo Soomaha insert text object adeena inta soo dhiganayna hadda sababta waxaan dhigi karaa faculty of computer science and information technology qolada sarayna waxa sameeyo for example loogadoodii sample tan ka dhigtay ayada red click ku dhaha format object ya dhigi doonaa farti iyo qurxinaa hadana mar labaad farta rabaa doora karaa Times New Roman Pollig xanoqoto cabirka 15 ka dhig dhigi karaa okay hadda marka report header-kayga dad sawirka markuu weynaado automatic uu weynaado marka asaas soo dhaxdhigay ilaane hadda kana inta ka qabana waa yareena u dhaweyna kana inta keende waa ka saada page-ki qaybta sare report-ki qaabkaas ka soo inta sidaas oo soo muuqan doona hadda marka waxaan sameyn doonaa database-ki aan rabaa table-ki aan rabay in report-ki soo bandhigo ayaan ku xiran doonaa database field taga database expert kadib waxaan dhihi doonaa create new connection OLEDB aado ayaan balaaska sakile ku dhihi doonaa marka click loo intee lagu xiro ala dhihi doonaa database lagu xiro SQL native client ayaa dhihi doonaa next ayaa dhaha halka marka joogo waxaan dooran doonaa integrated security maadaama username password loo galeynin
database keyga ayaa kicin doonaa si aad usoo koobiyeysto server name keygi si aad usoo koobiyeysto automatic waa kana server name keyga hadda engineer dhaqan SQL Express ay oo email adressing copy ayaa dhahan doonaa copy markaan dhaho inta keeni doonaa control C control V kadib inta waxaan ka dooran doonaa database ka aan ku xiranahay bu school aan ku xirnaa Soomaan waa kana database ka ku xiranahay nagasti oo bacdeen finish halkan waxa ii soo galay database keyga ayaa soo galay database keyga marka aan furo DBO gan waxa ku jira tablada ayaa ku jiri doonaan hadda tableka student la rabaa dhigi doonaa in calaamad sakili ku dhahay igu soo dar bacdeen okay hadda database fields-ki balaas ay yeelato waa fure tableka student asi fure meeshaan field-yada ka soo qaaday field kasta drag and drop ku sameeyay waa soo jiiday detail section ka dhex dhigay hadaarta cabirkiisa inay yeriskan detail section ka dhex yaala yareene kan kalena wala yaraana name ka qabanay waa soo jiiday asna inta dhigay hadaarta inay weynaysiis asna sidoo kale koos magac xoogaa uu dheeraa kara Soomaan laarta qaba dheeree sidoo kale genderka soo qabo inta soo dhig genderka male iyo female lagu jirmaan oo gaaban xoogaa yar gaabi hada design-ka qurxanay address-ka oo kala soo qabo address-ka kala soo qabo inta keen asna ma dheeraad inta badan xoogaa yar phone-ka kala soo qabo address-ka soo qabo inta keen phone-ka soo qabo asna rabtaan keen hadda waa kana marka dhalinyaro meeshan qaybtan hoose marka fiirisaa laba taab ayaa yaalo report main iyo main preview hadda reportkii qaabku u muuqan doono inta soo dhihi karaa waan iga xir waa kana reportkii hadhow qaabkan u muuqan doona laakiin hadda sidaan aad uma qurux badno sidaan aad uma qurux badno maadaama sidaan aad u qurux badnayn waxaan sameynaa inta ku noqona ana qurxinayo detail section ka dhalinyaro waxyara fiican in hoos loo soo jiido kadib intaan hal mar wada heelaad galay muuska adoo ku dul jiidayo hoos u soo degdeh kana heelaad galay waxa yar kor aad kadib maxaa sameynay right click ku dheh format multi objects dooro farta nooceeda waxa laga dhigaa sheego bold ha noqoto taro fartan xoogaa xawooyinaata 14 ka dhig cabirkeeda وينادين سمعن قبا هيلات قري عدد وحير كل جدة سوريا مدرجة نبلع وين يا ربا هكذا هذا هاستان كان أيان هيلات قري أي تنحقوا وينين ما دام بودي وحشو قلايتها فورمات مولت أوبجكتي فرت سيدة ريجولار حنقطة لكن عبر كله حقاير وينين لبيت من كده هذا مين ريبوت بريفيو ده مركز هذا وكان مركز ريبوت كذي سيدا راح عقاه دو كيرا قرحانية هدي أربنا حريق ما إنا قصو درنا وقصو درداري كنا دانيرو ديزاين كمركز ربنا إنا قرحنا وعندي دونا رايت كليك insert line هكذا هذا لاين يقوي انت إيدك كنترول زد ده هذا مثلا خير هو سودجي لينك حالنا ميلو فولي كرا هذا insert line ده كان له كوبي ده كنترول في ده ربط أصدق ده كنترول في ده أما كنترول زد ده كان انت ديك ده كان ساقه كت صاده كنترول في ده halkaas oo dhig leh meel ribad review ma jeedina xariiq ma yeesho hadda rabti xariiq ma jiif oo sameyn kartaa علشان wax waajib ma aha laakiin qofka soo raba asaa yeeli karo ribadkiisa
حلقمي تتجنا كونا كوبي كنترول في كنترول زي كنترول في كنترول في أنا تسكي بوبوسينو يا كنترول في كنترول في هذا من ريبوت بريفيو له كان ريبوت كي هذا ريبوت كان ليه رأس مستي كي هذا ريبوت كان رأس مستي أنا مركو حرمنا إن كوسو حرنا حرمنا إن MDI إن كوسو حرنا وقال داني الريبوت كان مركو لصوبان دقايا وحال استعماله وحلي هذا كريستال ريبوت فيور أو لو قلت لك الريبوت إن لصوبان دقا هذا ديزاين كي انت ناسكي كيسنا لبدان قيب hoose badan la isticmaalo badan date termki page numbers ki waxyaabaha noocaas loo adeegsado riboodada badan aad loogu isticmaalaa hadda waxaan dhigi doonaa project add window form waxaan dhigi doonaa frm report viewer.vb form kan waxaan ku soo darsan doonaa dhalinyaro report viewer ki ku soo darsan doonaa waxaa tagi doonaa toolbox-ka qaybta reportyada tagaa waatana reporting-ka waa kana crystal report viewer inta la iskaga jid automatic asaawla ekaanayo formka marka oo soo kacayo maxaan sameynaynaa waxaa dhihi doonaa dhalinyaro shaashada dhan ha la ekaado maximized ha noqdo maximized formka marka oo soo kacayo shaashada dhan ha ka soo kaco okay hadda MDI-gayga ii kici waxaan tagi doonaa student all reports ay double click ku dhahaa hadda marka inta ku soo qoran doonaa all reports kii already hore waxa soo import gareeyay SQL client-ga mujeedin SQL client-gan marka koowaad ka bilaw SQL client-ga soo import gareey all reports kaaga imaaw waxa dhigi doontaa dim dt as dataset dim da as new SQL data adapter con.open query hayla min noqdo select all from here student table kala xogta ku jirta isoo akhri order by id ado id ahaan u kala hormarinayo waxaan dhigi doonaa da cmd hayla min noqdo new SQL command marka loo baas gareeyo shaqadii la qabanayay iyo meeshii laga qabanayay da.selected command hayla min noqoto cmd dim keyboardkayga muxuu ahay rbt as new crystal report 1 rbt dot set data source waxaa ka dhigtaa sorry sababtoo data adapterkii aan rabin wax ka soo aqriyo wax ma ku shubinba waxaan dhigi doonaa da.fill ts waxaan ku buuxisaa table-ka lagu magacaabo students xogta ku jirta ku buuxi hadda waxaan dhigi doonaa ds. Okay, da.fill ds waxaa ku shubi doontaa xogta lagu magacaabo student waxa ku jira ku soo shub okay booside okay zere meesha waxaa laga rabaa taqaaneen sababtoo ds maba la yaqaano waxa la ds ma la yaqaano meesha waxaan dhigi doonaa dt waa data table-ka rabnaa meeshaan data set-ka aan dt ka soo dhigay ds inaan inta object-ga saas la rabay inaan ka dhigto
waxaan dhigana marka fiiri ds waxa iigu soo shubtaa table-ka lagu magacaabo students iigu soo shub xogta ku jirtay okay hadda waxaan dhigi doonaa rbt waxa ila mid noqoto rbt.set data source waxa iigu shubtaa ds.tables table-ka lagu magacaabo student xogta ku jirtay kusoo shub frm report viewer dot crystal report viewer 1 ka dul saaran dot report sourcegiisane waxa ila mid noqdo rbt wixii ku jiray frm report viewer dot crystal report viewer 1 dot refresh frm report viewer dot show con dot close iga xir connectionki hadda aan tasti gareena marka koodkan dhalinyaro koodkan laba si waa uga faa'iideysan doona waan idin tusaa sida kale haddana uga faa'iideysanayo hadda username-keyga waa dhaqane 12 waa password-keyga waa kana markaan soo galo reportska aad tago and all reports itus waxaan dhici doona reportkeyga ay soo kici doona marka koowaad reportka cusub yahay marka badanaa xoogaa culeys yar aa imaana laakiin waqtiyada kale si caadi ayuu u shaqeynaa okay error aa jira qiyaasa waa kana student saa u qorna fiir meeshan invalid object name aa looyaa waa kana studentigaas si qaldan u qorna soo maaha meesha wax laga soo aqrinayo students table-ka magaciisa iska qaladna report all reports waa kana hadda reportkeyga waa soo kacay xogta iigu jirtana waa kana table-ka student la dhahayo table kastana xogtiisa qaabkana loo soo bandhigi karaa marka dhalinyaro marka qaar waxaa suuragal ah in lagu weydiiyo single student hal arday reportkiisa in lagu weydiiyo ayaa suurtagal ah sidee loo sameynaa already reportka uu ii samaysan yahay designkiisa koodkan ana qaadan doonaa intaanan copy dhihin xitaa koodkan meesha ii yaalo formki oo qofka ay dhigiisa soo geli lahay ayaa kusoo darsan doonaa add form aan dhihi doonaa frm waxaan dhihi doonaa single report ama single student isku mid ah inaan dhaho table-ka lagu magacaabo student formka waxyaabihii hore usoo sameeyay dhan dhalinyaro anoo ka faa'iideysana copy aa dhahan doonaa intaas u baahanahay Ctrl V waan soo qaad inta kan qaad inta igee okay kan waxaa dhaa show report igu qor kanna waxaa ku qortaa student id ku qor text boxkan namekiisa maxaa ku qoraysaa waxaa qoraynaa txt id ku qor okay kanna dee btn show report ku qor asigana hadda waxaa igeysaa marka mda-geyga hadda igey haddaan raba mda-ga koodkan hadda u baahnaa marka koodkan dhalinyaro copy soo dhahan doonaa
single report ka ikeen design-kiisa kan double click igu dheh inta control v igu dheh data adapter ki lama yaqaano ku dhaha samaha khalad ma ahan waa runtiis lama yaqaano maxaa maqan SQL client-iga maqan SQL client-iga ka maqan ku soo darso markaas waa la yaqaano ku dhidana report-ka markaa rabtid marka shakhsi inaad ka dhigtid wax kale ma sameynaysid order by-dana iska tirtire students marka dhahdo where adii doonta ID-ga oo lamid yahay single quote double quotation anda waxa ku qabanaya dhina txt id txt-geeda waxa la soo geliyo anda single quote double quotation intaas la soo qabo hadhow ID-gaas bisoo soo akhrin doona marka report-kaas inta ku soo xiri doona marka oo single students-ka ah MDA-gayga igey report-iska tag single report double click ku dheh waxaan leenahay frm single report .mdi barantigiisa xayla mid noqdo me frm single report .show iso bandhig ay bismillah waxaa daran gareena marka waa tijaabeynaa waxaan soo qabanay inay shaqeynayaan iyo in kale report iska tagi doonaa single report kili ku dhaha waa kana ardayga ID-giisa geliya leedahay ID labaada gelina show report dhaha hal arday warbixintiisa markaan soo bandhigaa daatay saddex qof la soo bandhigaa maana markaan hal shakhsi la soo dhigaa single report kaasna dhalinyaro qaabkaas ayaa loo sameeyaa okay waa soo gabagabeynayna marka hal report jiro oo aad muhiim u ah badanaana systemyada waxyaabaha lagu qiimeeyo kamid ah halkaas report waxa waaye report-ka waraaqada la kala jeexayo oo tusaalahan kale hadda marka bangiyada tagno kale lacag dhigno kale ama lacag kala baxno kale ama xafiiska jaamacadda marka tagtid oo lacagta aad bixisid oo kale waxa jira waraaqad half oo lagu soo siinayo half kalena xafiiska oo reebanayo report-ka noocaas asii qaabkee loo sameeyaa code ahaan wuxuu la mid yahay kuwan oo la mid yahay laakiin design ahaan wuu ka duwan yahay marka design-kiisa idin tusi doona qaabka loo sameeyo waxaa dhihi doonaa project add new item ayaan dhahaa report igu soo daraa dhihi doonaa report 2 iska noqon doonaa magaciisa report-iga ha qaato mid balaanka u baahanaha dhihi doonaa kadibna okay ayaa dhahaa okay haddaba dhalinyaro marka ani markaan qeybahan dhan ku shaqaysan dooni details report header-kii ma u baahni waxaa wax badan isticmaali doonaa ama inta badan baa wada isticmaali doonaa detail section-ka isticmaala si waraaqadeeda waraaqada kala jari kara ay u noqoto marka report-ka ana tagi doonaa sawirkan maadaama sawirkan loogadan uu yahay oo soo koobiyeysan doonaa report-kayga labaad ikeen control v inta igu dheh loogada tartiib inta igu dhig haddana igey magacan mar labaad inaan qorqorxiyo qorqoro waqti oo qaadana copy ida asigana wixii hore u heysatay waa ka faa'iideysan kartaa inaad copy-yeysatid asna bast inta igu dheh inta red keligeeda insert line isoo geli dheh line inta igu sawir hadda marka dhalinyaro waxaan sameyn doonaa hadduu ilaa raali ka dhigo database-keygii ayaan kusoo xiran doonaa database expert ayaan dhihi doonaa table student la weli u baahanahan dhaha table-keyga soo qaadanaa inta hadda waxaa ku jiro filliyadii ogaada dhalinyaro markaa filliga ID-ga aad soo jiido oo inta oo kale aad keeno qaybtan kore waxaa aadayo column name-kii aadayo asna waa soo qaadi doonaa intaa keeni doonaa name-kii soo qaadan doonaa rabtaana geyn doonaa asigana qaybtiisa kale column-kiisa kale kor oo aada asigana kasoo deji inta ay keen hadda tusaale ahaan oo kale kan waxaa dhihi karaa waxay iga yaree kan xoogaa isoo weynaya dhihi karaa because saddexda magac kan dhex galayaan
okay haddana waxaa dhihi doonaa genderkii isoo qaad halkan ii keena dhihi doonaa columnkiisa asna kor oo aadi doonaa kasoo deji inta ii keen adresska soo qabo inta ii keena dhihi doonaa asna columnkiisa soo qaad inta keen dheh yareene okay waxaa iisoo qaadi tusaalaan oo kale foonka iisoo qaad asna meeshan oo kale ii keen columnkiisa kor oo aadaa asna soo deji inta keen hadda waa kana design-keygii qaabkana u samaystay dameer qaybaha ma u baahni waa iska laabi karaa haddii furnaadaana culeys uguma hayaan laakiin kan bisa laga rabaa hoos inaan u dejiyo halkan marka aad joogo marka intaan ii heelaad garee hal mar aan objectskooda qurxinaa fartoodii wuxuuda rabaa inaan waaweyneeyo maya meel banaanaan red click ku dhahay mid ayaa kamid dushooda waa inaan red click ku dhaha format multi object horta iga qurqurxi folde ka dhigdha routine ka dhigdha hal mar haddana heelaad garey qabo waxay hoos u weynay meel banaana qabtay larta markay laba madax yeelataa lahayaa red click insert text object waxaan leenahay cashier sign control V Select format multi object bolding qaad xoogaa ma qurux badna bolding okay hadda qaabkan oo kale meesha kala baraysa xariiqinta kala baraysa keen inta keen intaas waraaqada kore waaye waraaqadan qaybta hoosaatana celi marka waxaa ii samaysaa kan soo koobiyey copy control V waxaan soo dhigdheh kan tag iyo linekan isku soo koobiyey copy control V ayagana waxaan dhigdheh
intaan hal mar soo qabo isku soo koobiyey koobida qayb loo soo koobiyey hal mar soo koobiyey ismaayaan copy Ctrl V نقدر Ctrl Z Ctrl V نقدر labadan soo qabaadana soo copy Ctrl V نقدر اوكي مين ريبوت بريفيو ده هذا كان ريبوت كي قاب كان كل عمونا ده ريبوت كي كان دارو اوريجينال يكوبي واحد كل قرا كلا اي واحد سو كل قرا معنا اوريجينال انا اساسا كي قرنا copy sorry Ctrl V عندنا هذا copy ده اوكي marka hadda kana saan oo kala leeyahay wax kala maahan intee waa reportka meesha ku xireen marka hadda anaga dhalinyaro form la qabasho ma noo sameeysan laakiin waxa noo sameeysan form registration oo xog la save gareynayo xogta marka la save gareeyo waxa rabaa durbadiiba in formkan lagu yeeraa rabaa waxaan sameyn doonaa marka fiiriya single report ki ahay ayaan soo qaadanaa code single report ka isla code kan la qaadanaa isla code kan qaadan doonaa copy and hana waxa tagi doonaa student-gayga tagi doonaa meel banaana double click iskaga dhaha meeshan kale banaana iska imaana waxaan dhigi doonaa sub show report iyo samee procedure la Ctrl V code keen dhex dhig hadhow txt id ga ayuu ku xirmi doonaa marka okay marka wax save gareynayna marka code kan wacayna data has been saved marka la dhaho connection ka la xiro ayaa waxaan dhihi doonaa Ctrl Z waxa ii wacdaa show report iyo waxa dhihi doonaa hadda fiiriya dhalinyaro waran gareena okay zori hal xabaa iga qaldan report kan aan ku xirmayo report kay waa su'aasha hadda report muxuu ku xiran yahay wanu ku xiran yahay report wanu ku xiran yahay ana report ka design ka ku sameeyay muxuu ahay report tu yahay report ka design ku sameeyay wuxuu ahay report tu kana markii bedeli doonaa
report ka dhigi doonaa inta kale okay waaye kow laba iran gareedaha report iska tagi doonaa sorry student registration tagaani si waxa rabaa report waraqad kala jeexmis ee u soo baxaysaa hadda waxa dhigi doonaa new qof diiwaan gali ayaa la dhigi doonaa waxaan dhigi doonaa genderka maxaa waaye female waaye adresska telefoonka maxaa waaye telefoon numberka sheego tusaale ahaan oo kale numberkan oo kale gelinaa sawir soo qaada la dhihi doonaa biro sawir kan oo kale iska soo qaadi doonaa save gareeya dhaha maxaa la marka data has been saved xogtan way la save gareeya la durbadiina maxaa la tusi doonaa foomki aad daawacaya la soo bandhigaa foomka waa kana marka aad daawacaya oo waraqada la kala jeexayo kana originalki iyo copygi waa kuwana marka kana qaabkan oo kale la sameeyo hadda rabaa inaad daawaco printer adii doonaa ii daabac printerkaaga dooro kadibna waa la daawacaa hadda printer ani iguma xirna computerka durbadiiba xogti aan save gareynana waatana waan ula keediyay marka insha Allah marka dhalinyaro reportka saddexdaas qayb hadda aan idin sheega ugu muhiimsan oo ah midka all-ka midka single-ka midka waraqadan la kala jeexayo waa rajeynaa inaad fahanteen marka waxaan idinka rajeynaa insha Allah inaad soo sameyn doontaan oo aad insha Allah projectiyada aad sameyn doontaan aad ku develop gareyn doontaan aragtidan iyo aragti kale oo ka wanaagsan hadduu Ilaahay raali ka dhigo marka qaybta reportada meesha ku keenayna billahi tawfiiq wasalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.